dhalinyaro iyo waayeel iyo haween waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa sidaa u soo dhaweysaan xisbiga inaad doorateen xisbiga inaad isbeddel dhalisaan oo xisbiga waddani ku dhalisaan aad baa ugu mahadsantihiin way muuqataa shucuurkiinna iyo dareenkiinnu wuu muuqdaa waan idinka mahadnaqaynaa mar iyo lababa waxaan doonayaa runtii inaan tilmaamo laascaanood maalintii igu dambaysay oo aan 5 waddo dhagax dhigaynay oo aan halkan maraynay ayaa waxaan idinkala hadlay laascaanood hadalkayga ugu dambeeyey wuxuu ahaa dawladdan aan ka midka ahay haddaan ahay xirsi oo wasiira anigu waan tegi doonaa siilaanyana wuu tegi doonaa dawladdii hore soomaaliyana way tagtay horumarku idinka tegi maayo horumarka ilaashan soo sidaa may ahayn dawladdii wakhtigeedii wuu dhammaaday madaxweyne siilaanyana khayr allaasiya wakhtigiisii wuu dhammaaday dalkuna isbeddel buu u baahan yahay soo ma aha isbeddelka sidaa u muujiseen buu u baahan yahay soo ma aha guul baynu doonaynaa insha allahu tacaala qarankeenna guud ahaan inaynu u keenno somalilan barwaaqo ah somalilan la wada leeyahay somalilan cadaalada oo loo siman yahay ayaynu doonaynaa inaynu samayno soo ma aha waa yahay qolada kulmiye caado waxay u lahaayeen oo aa ka ogeydeen inuu yidhaahdo musharaxu hebel iga reeba waxa suurtoobi weyday inuu tartamo oo kartidiisa iyo aqoontiisa isku soo taago ku meel maro dhacday iyadoo cadaalad darraabay dhacdo hebel laga reebay maanta waxay marayaan reer kulmiye iyo musharaxii muuse waxay marayaan hebel igu ballami reer hebel igu ballami soo halka ma imana meero reer hebel igu ballami odayaasha iyo cuqaasha garaadada iyo dadka akhyaarta ah ayaa loo yeedhayaa waxaa la leeyahay reerka nagu ballami dee reerkii waa kaasi cod u doono reerka igu ballami bay maraysaa annagu waxaanu wadnaa madaxweyne codkiina idin weyddiisanaya waa mid aan loo khasbanayn hadday iyagu yihaahdaan waa loo khasban yahay waa mid aan loo khasbanayn dalku waa dimuquraadi dadkuna waa xor dalku waa dimuquraadi oo nidaamka dimuquraadiyadda doorashada marba kii ay doonay dooranayaan dadkuna waa xor marba qofkii ay doonaan bay dooranayaan isbeddel buu dalkuna u baahan yahay doorashadiinna iyo rabitaankiinna sidaa iminkaba aa muujiseen ku doorta waddani insha allahu tacaala waddani wuxuu samayn doonaa isbeddel xagga nolosha ah isbeddel xagga horumarka ah isbeddel xagga adeegyada bulshada ah waxaana waxaasoo dhammi ku qeexan yihin oo ku qoran yihiin buugga barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga ayay ku qeexan yihiin kaasaannu doonaynaa nugu taageertaan kaasaannu ka dhabaynaynaa insha allahu tacaala kaasaannu meel marinaynaa ballabaannu idiin qaadno insha allahu tacaala waa fulin doonaa ballabaannu idiin qaadno way fuli doonaan waxay naga xiga doorasho xisbi walba 2 maalmood oo haray soo ma aha 7 cishaa inaga xiga biidni illahi tacaala dawladda waddaniya dhalan doonta 7 cisho kadib insha allahu tacaala waxay samayn doontaa adeegyada bulshada ee baahida badan gobolkan uu qabo ee magaalada caasimadda laascaanood u qabto ee kala duwan ayuu samayn doontaa insha allahu tacaala waxaase ka horraysa codkiinna iyo fartiinna ay u baahan tahay si ay ugu beddeshaan soo ku beddeli maysaan sow diyaar uma tiidin waxaan jecelahay runtii maadaama aa wakhti badan taagnaydeen oo maantoo dhan sugayseen waxaan jecelahay inaan ku soo dhoweeyo guddoomiyahan ku soo dhowaynayaa guddoomiye ku soo dhoweey